وحكمذا قراءة القرآن بالتدبر قرآن كإلهي مركين آخرينه إن أمر رمضانها تام غير رمضانه إن أينو بالتدبر كآخرين التدبر كوحويان لغشو إن إسدقيسانيسو إلهي أو كلها الضيانة أدمركا أو قادة أرنت وأنا الحولين مركز القرآن كآخريسو وأنا إسك حولين لكن وأنا سوتشيدو وأنا هذا الكاغا مغليسو وأنا سؤاله إلهي كويدين يك جوابي كريسو درين كاقبط مركا القرآن كسيد الله أخريها كلا دوان قفوحو كو حسابتما انت جسو دمينيو iyo inta xaashiyadu dhamaynayo qofna uu dhadhaminaya wuu macaansanaya sidoo nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa wuxuu tilmaamay quraan kood dhageysataa inay iimaankeena kordhinayso wa idha tuliyat innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iimanan wa ala rabbihim yatawakkalun dadka mu'miniinta ah waxa weeye kuwa marka lagu dul akhriyo quraanka ilaahay iimaan ay u kordhiyaan aayado aayadii buu dhageystay iskamuu dhaafin laakiin dhageysigaas wuxuu keenayaa macaans waxa uu keenayaa khushuuc wuxuu keenayaa marka iimaanka inuu kordho waana taynu soconno waxyaabaha iimaankeena kordhinaya waxa kamida macrifatu asmaa'i illaahi alxusna وصفاته وعبادته بتلك المعرفة إنه عشر قارك قادمه وإنه برنا مقعية إلهي يو صفات كيسية المامها أولي وإنه كبرينه وإنه كعبادة يسنه هرنتا سنات بي مهم حيوان إلهي كبري يوي حيوان إيمانك كرنين يوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة إلهي سقالي سقاشا مقعب وليهي سقالي سقاشا كان مقع قفك حافظا يدوشا كقيبا جندو قليا مركا وين معنوه ذا قرنيس اسمي بالغا يابا أما هالمقع إنو انتاسو معنى ليه معنى وليبا وحكو كردين معرفة يا أقول إن هذه الله برته سبحانه وتعالى وها كم إذا وحيابا إنه كردنا يا إيمان كثير تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة السلف الصالح إن سيرة النبي آخرينه أو سيرة نرشيكو عسبوني سيسا قيرئية شبئية شعالنا وكوا بورتا يتشهين كضياشنا واتكهشا رسول كاغات كضياته ونرشو كما مارنت تصالح كما مارنت marka cidda tusaalaha inoo hayna waa nabiga iyo jiilkii ama qarnigii uu gacmiisa ku rabeeyay dadku adiya jeer waxay jecel yihiin inay wararka dhageystaan oo taariikhda akhriyaan oo noofalada iyo sheekooyinka akhriyaan laakiin inaga cibra iyo cashar intaba waxay noogu filan tusaalihii iyo hadigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisii marka siirada nabiga in la akhriyo oo dhalinyarada la baro aad bay muhiim u tahay waxyaabaha iimaanka kordhiyay ka mid waxaa laga yaabaa inaad hore u kacdo oo aad la noolaato oo aad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u heshanayso oo halkuu farxay aad farxayso halkuu naxay aad naxayso wixii uu markaa rabay uu aad ugu han weynaa adiguna aad u han weynta qadiyadda siiradu waxa weeye weliba daayartiya dhalinyarada halka ummado kale lagu xidhayo ama ummado kale wararkooda loo akhriyayo ama qisooyin ay jecel yihiin looga warramayo siiradu waxyaabaha iimaanka kubciya ummadahana lagu tababaro ayay ka mid tahay waxa aynu ogsoonahay quraanka kariimka ay taariikhda aad uga warramaa intee ummadood baa qisadooda quraanku aad uga warramaya taa macnaheedu waa maxay waxa looga warramayaa maaha wax sahlan waxa looga warramayaa in nolosha lagu saxo oo lagu toosiyo iimaana laga kororsado waxa kamida waxyaabaha aynu iimaankeena ku kobcinayna at-ta'ammulu fi aayaati illaahi al-kawniyya iimaanka waxyaabo inoo kordhinaya waxa kamida sidaan aynu quraanka u akhriyayno kitaabka quraanka
inaynu akhrino kitaabka kownka waxaynu uga jeednaa caalamkan aynu ku abuuranay cirkiisa dhulkiisa badihiisa buurihiisa biyihiisa bannaanka dadka xayawaanka alla waxaasoo makhluuqa warshadee soo saarta warshaddii ilaahay subxaana wa tacaala maxaa cibro iyo cashara ku jira waxaa la yidhaahdaa alcibaadatu saabita baa la yidhahda waa cibaadada aamusan tafakurka fikirka aad ka fikirayso caalamka aad saa u eegayso intaad bannaanka u baxdo dee waa miduu nebigu tusaale inoogu ahaa sala allahu calayhi wasalam ina fii khalqi الsamaawaati waalardi waاkhtilaafi اlleyli waاnnahaar laaayaati liuli lalbaab aayadaha markuu nebigu akhriyaya calayhi salaatu wasalaam habeenkii ku cibaadaysanayo haddana caalamkaasuu eegayaa iyo xidigaha iyo dayaxa iyo ayuu eegaya marka arrintaasina aad iyo aad bay muhiim u tahay silsiladaasi halkaasay inooga sii socon doontaa qadarkaa yaro kooban ayaynu wakhtigan imika ka qaadanaynaa ilaahay nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu